halkani waa wadada Astaangolol ee magaalada Gaalkacyo waxa ka socda dhismaha wado laami ah oo dhawaan laga bilaabay hirgelinteeda sida muuqato waxa shaqaalaha dhismaha wadadan iyo laamaha amnigu ay ku hawleeyeen hagaajinta bilicda wadadani iyo sidii hareeraha wadada looga wareejin lahaa dadka ku ganacsanaya goobaha socod darrada ah arintaasi waxa aad u soo dhaweeyay dhismaha wadada iyo hirgelinta wadadani laamiga ah oo la filayo in ka badan 2 kiiloomitir oo wada ah in laga hirgeliyo dariiqan Astaangolol dhexmara ee magaalada Gaalkacyo qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo mikrofoonka telefishinka ayaan la dhaxqaadnay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo waxayna dareen isku mid ah ku soo dhaweeyeen hirgelinta wadadani oo ay hormuud u yihiin maamulka dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo haddaba waxaan idin la wadaagaynaa muuqa qaar kamid ah shacabka magaalada Gaalkacyo ku dhaqan oo ka hadlaya arrinkaasi waxaan taaganahay bartamaha wadada Astaangolol oo dhismo ay ka bilaabatay isbuuciyadii la soo dhaafay meeshan hadda aan taaganahay marka dhibicda roobka ay daado in la istaago iska dhaafay xataa waxay qaadan jirtay isbuuciyo in biyuhu ay ka dhamaadaan waxay ahayd meel biyuhu ay fadhiistaan oo dadku waxay wax ku qabsan karaan inay wada shaqeynta muhiim ah amniga laga wada shaqeeyo nadaafadda laga wada shaqeeyo bilicda laga wada shaqeeyo sidoo kale dawladda hoosena iyo maamulkuna dadka ay ku soo celiyaan cashuurta ay ka qaadaan iyadoo haddaba ay wajigii koowaad oo shaqada ay bilaabeen shaqaduna aysan ku ekaa doonin wadadan Astaangolol aysan ku ekaa doonin wada kasta oo muhiim ah oo magaalada ku taala laga shaqeyn doono marka sidaas daraadeed waa bogaadinayaa waa soo dhaweynayaa waxaan arki jiray iyadoo waqtiyaasha roobka aan baqaar iyo dukaan iyo maqaad mid u gudbi karaan la arkin oo baabuurtu meel ku xayiran tahay dadku meel ku xayiran yahay wasaqda iyo dhiiqada iyo waxaas ay yaalin haddana waxaan u jeedaa magaalada isku furantay maqaayad haday tahay dukaan haday tahay dadkii haday tahay waa soo dhaweynahay wax qabashadii noocaas ahayd waana ku mahadsan rag noo dhis maamulka dawladda hoose shaqadii meeshaan ka qabtay waxaan leeyahay si wanaagsan baad u shaqayseen noona si wanaajiya intaasaan ku soo dhaweynahay wassalaamu calaykum barakaatu shaqadan waxaan u garanayaa shaqo wanaagsan oo fiican wadada in loo dhiso horena oo si socono oo gadaal loo laaban waxaan ugu baaqi lahaa wadadaas la dhisayo fayska labaad in si wanaagsan loogu diyaar garoobo la raaco maamulkeena iyo dawladda iyo maayarka kulli waa ku qanacsana suuladda waxaan dhihi lahaa shaqada qabateen aad baan inkugu mahad celinaynaa magacayga Duniya Ciise leeyahay meeshaan waxay ahayd meel yar oo hoos oo dhisan hoos waa la fujiyay laakiin hadda anu darbiga iska joogaa waxaan ku qanacsanahay in albaab darbi la ii sameeyo laami la ii saaro baan ku qanacsanahay oo ii qurxoonaato shaqada ay hayaan dawladda hoose ay qabato hadda ay bilowday oo ka bilowday wadada horumar marta ugu ku magacaabo Astaangolol marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa salaam diiran oo marxabo leh oo kalsooni leh dawladda hoose oo uu madaxu yahay duqa magaalada iyo intii kale oo la socota waxay qabteen shaqo wanaagsan waxay qabteen shaqo loo baahan yahay waxay qabteen shaqo wax hore u qabto la waayay waxaan kaloo codsanayaa oo dadweynaha u sheegayaa inay shaqadaas wax ka galaan wax ka qabtaan dhaqaale ku bixiyaan cod ku bixiyaan caqli ku bixiyaan maal ku bixiyaan dalka ayagaa degan qofku xilka uu hayaa maanta uu qabtay bari hadduu rabo waa ka tagayaa oo waa qormaalba qof baa qabanaya laakiin waxa la qabto iyo cidda wax qabsata waxay u harayaan guryaha meesha ka dhisan dadka iskale marka waxaan codsanayaa in lala shaqeeyo dadka meel kasta oo shaqo laga qabanayo oo gobolka ama degmada ama wax kasta shaqada on dadkan waa shaqaale oo dadka u shaqeeya laakiin dadka shaqada iska loo qabanayo wuxuu u soo laabanayaan waxa la qabto u harayaan waa dadka deegaanka degan guryaha dhisan leh guryaha meesha ka dhisan leh wadada maraya ku safraya ku lugeynaya baabuurta ku wata dadkan kale waa shaqaale waa adeegayaan marka shaqaalaha hal caawiyo oo dhinac walba laga caawiyo dhaqaalaha laga caawiyo codka laga caawiyo caqliga laga caawiyo xoogga laga caawiyo aad in loo caawiyo ayaan codsanayaa sidaa ayaan abdulwaasid salaamaya waana mahadsan dawladda magacayga maxaa Abdulqaadir waxaan ka mid ahay dadka degan wadada hadda la dhisayo ganacsatada degan ayaa ka mid ahay waxaana ayaantaas socday wada dhis ay watay dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxaana haddaan nahay ganacsatada iyo dadka deegaanku aan soo dhaweynaynaa horumarka iyo wadada
iyo bilicda waddo dowladda hoose waxaan diyaar u nahay inaan kala qayb qaadanno qayb kastoo ay nooga baahato dowladdeenu waxaan arkaynaa hadda markii hore shaqada la bilaabahayey dadku qaar ay islahayeen culays ay dareemahayeen laakiin hadda ay arkeen inay tahay horumar wax la wadana ay shaqo tahay shaqadiina hadda socoto bilicdiina aad u muuqato in waddo laamiyahoo fiican ay socoto waxaan diyaar u nahay qaybta ugu horeysa waan ka qayb qaadanay intaan awoodno haddana diyaar waxaan nahay qaybta labaad wixii naga soo aaday inaan qayb ka qaadanno waan soo dhaweynaynaa waan u mahadcelinaynaa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo doorashadii si kadib shaqooyin badan qabtay oo aan leenahay shaqadii loo idmaday qaybihii bilowga ahaa uu qabtay aan rajaynayno inuu qaybaha dambana sidii aan u doorannay oo aan u soo dhaweynay oo inuu u sii wadi doono insha Allah taala sidoo kale waxaan wax ka weydiinay hanaanka ay ku socoto dhismaha wadadani iyo halka uu marayo qaar kamid ah mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo iyo qaar kamid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha wadadani waxayna yiraahdeen bismillaah xogaygu waa maxamed cali xaaji gudoomiyaha guddiga howlaha guud ee degmada Gaalkacyo ragga walaalay galbeeyga taageerna waa ragga guddiga gula jiro oo maayirku soo magacaabay oo shaqadan ka wada dhismaha laamiga Astaan Golol iyo Astaan Hobyo oo dhismo ay ku horumartay wadada Astaan Golol oo meel fiican maraysa shaqada waxay u socotaa si dardar ah bulshada ku dhaqan labada laami waxaan ka codsanaynaa inay maamulka la shaqeeyaan ciidanka amniga la shaqeeyaan oo si fiican bay u socotaa qof walba ama mirta maamulka inay qaataan iyo ciidanka booliska saakay waxaa joognaa wadada Astaan Golol oo ka socoto dhismaha iyo hagaajinta insha Allah hadda waxay maraysaa meel fiican waxaan rajaynaynaa in taqaanaay aan dhamayno insha Allah hadii la idmo dhammaan bulshada ku nool Astaan Golol iyo inta wadadan ku xeeran dhamaantood waxaa ugu baaqaynaa in ay mataqaanaay sida loo baahan yahay ama sida hufan ama sida lagu talagalay oo shaqeeyaan dhammaan cid kasta oo shaqadan wata mar labaad mar saddexaad waxaan madcelinayaa guddiga shaqadan haya oo dhawr adeegay oo har iyo habeenba u taagan in ay mataqaanaa dalkooda dadka u shaqeeyaan sidoo kale kabaniga hawsha wada ayuuna xaleeyahay mahadsantiin iyo laamaha amniga baaha saxaafadda dhammaan dhismaha wadada Astaan Golol ee imika socda wuxuu qayb ka yahay mashaariicda horumarineed ee ka socda degmada Gaalkacyo iyadoo dhawaan la filayo in dhismo ka lamida laga bilaabo wadada dheer ee Hobyo oo asna laami la saari doono